بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعندا وديال كسو دوادا قodobada ugu doorka xulan wararka aadeen hayno hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo boqoto channelkan subscribe saaro qaybta hoose ee commentiga aragtida nagu reeb sidoo kale like dhac ku siiya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu sheegay in diyaaradii lagu soo riday Berdaale ay kula xisaabtami doonaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxa uu kulamo gaar ah ka wadaa magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi magaalada Beledweyne waxa laga baqanayaa in saacadaha fooda nagu soo hayo uu ku faafo ama uu ku fataho wabiga Shabeelle ee magaaladaasi maro taliyihii booliska degmada Dhuusamareeb ee Galmudug waa uu iscasilay waxa uu sheegay in rag shabaab laga sii daayay xabsi uu maamulayay Somaliland waxa ay sheegtay inay diiwaan gelisay kiisaskii ugu badnaa ee caabuqa coronavirus dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegtay in dhawaan ay bilaabi doonto howlgal ka dhan ah al-shabaab oo looga saarayo deegaanada iminka ay ka arimiyaan qodobadaas ayaa daawan doontaan hadii uu raali ka aado subscribe ha hilmaamin aynu ku bilownay Senator Ilyas oo kamida mudanayaasha aqalka sare ee laga soo doortay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool ayaa waxa uu sheegay in diyaaradii sida kaska ah loogu soo riday degmada Berdaale ay kula xisaabtami doonaan dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo senatorka waxa uu sheegay in diyaaradaasi si bareer loo soo riday isla markaana lagu dhuftay qoriga loo yaqaano RPG iyadoo oo markaasi doonaysay inay ku degto magaaladaasi Berdaale senator Ilyas oo warbaahinta la hadla waxa uu sheegay in ay qalad tahay in la soo rido diyaarad si sharci ah oo fasax ah ku socotay isla markaana gantaal loo adeegsado ciidamada Itoobiya ayuu sheegay in gobolada Bay iyo Bakool ay ka sameeyaan gabood falyo aad u daran kuwaasi oo aan la soo warin dhowr jeer oo hore ayuu sheegay falal sidan oo kale u dhacay in aynay jirin cid qof kale kula xisaabtanto taas ayaana sababtay in mar waliba ciidamada Itoobiya ay sii xoojiyaan tacadiyada ay geysanayaan ee aan lagu xisaabtamaynin waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolada Bay iyo Bakool ay u dhaqmaan si ka baxsan sida ciidamada midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya joogo taas oo cadeynaysa in ciidamadan ay ka mid yihiin AMISOM isla markaana ay wataan awood u gaaro iyaga u gooni ah waxa sidoo kale carabka ku adkeeyay in markan aan la aqbali doonin tacsi iyo magdhow iyo wax la mid ah isla markaana ay doonayaan in maxkamad la soo taago shakhsiyaadkii ka dambeeyay falkaas foosho xun ee aan loo dul qaadan karin ciidamada Itoobiya wali kama ay sahlin diyaaradan ay soo rideen sabab la'aanta hay'adda ciidamada midowga Afrika ee AMISOM war qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ciidamada halka ku sugnaa ay ka tirsaneen ciidamada AMISOM isla markaana ay yihiin ciidamo u gaar ah kuwa midowga Afrika AMISOM ay ahayn oo yihiin ciidamo Itoobiyaan ah oo halkaasi joogaan Itoobiya ciidamo badan ayaa ka jooga Soomaaliya kuwaasi oo isugu jira kuwa kamid ah ciidamada midowga Afrika AMISOM iyo kuwa iskooda u jooga Soomaaliya oo ka amar qaato xukuumadda Abiy Ahmed dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya ayaa waxa la sheegay in xiriir aad u wanaagsan oo markan ka dhaxeeyo oo saaxiibtinimo waxaana madaxweyne Farmaajo iyo wasiirka Itoobiya Abiy Ahmed dhowr jeer oo ay kulmeen ay sheegeen in Soomaaliya iyo Itoobiya waqtigan uu furmay waji cusub kaasi oo nabadgelyo xasilooni isfaham isla markaana la soo laalaabay wajiyadii colaadda iyo sidoo kale baaba iyo sidoo kale xiqdigii ama colaadii qalbiga jirtay ee la isku hayay taasi ayaa iminka waxa ay sii cadeynaysaa in labada dowladood wax waliba ay wada hadal ku dhameyn karaan hay'adda Senator Ilyas waxa uu sheegay in Itoobiya iyo sidoo kale dowladda hadda jirtaahi ay isugu mid yihiin marka la eego tacaamulka iyo wada hadalka waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo ay Itoobiya dabada ku wadato isla markaana Itoobiya iyagu ayna ka sugaynin wax waan iyo nabad ah sida uu hadalku u dhigay waxa uu sheegay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laga rabo in uu warcad ka soo saaro diyaaradan sida kaska loogu soo riday halkaasi hadii kale ay qaadayaan talaabo ku haboon hadii ay yihiin reer Koonfur Galbeed sida uu hadalku u dhigay Itoobiya ayuu sheegay in uuna ka rabin wax wada hadal iyo sidoo kale wax tacsiya ama war ah maadaama halka diyaaradda lagu soo riday ay tahay Soomaaliya dalkana uu mas'uul iyo madaxweyne uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asigaas ayuu sheegay diyaaradaas inay ka rabaan iyo dadkii ku geeriday sida uu hadalku u dhigay Senator Ilyas
taliyihii booliska ee magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa xalay saqdi dhexe iscasilay kadib markii uu sheegay in 2 jeer uu soo xiray xubno ka tirsan al-shabaab si bareera loo daayay. waxa uu sheegay in taliyaasha ka sareeyay asiga ay ku amreen in raggaasi la sii daayo qaarkoodna xabsiga lagala baxa asigoo aan ogeyn. waxa uu sheegay in magaalada Dhuusamareeb iminka ay soo galayaan raggii ugu badnaa ee ka tirsan al-shabaab taasina ay sababtay iscasilaadiisa degdega ah. waxa uu dadka shacabka uga mahad celiyay sida wacan ay ula shaqeeyeen muddadii uu xilka hayay. waxa uu sidoo kale u mahad celiyay madaxda sare ee dalka iyo madaxda maamulka Galmudug. waxaase uu sheegay in raggii ka baxsaday Dhuusamareeb ee xabsiga laga sii daayay in la geeyo magaalada Cadaad ee gobolka Galgaduud. waxa uu sheegay shakhsiyaadkaasi in aad loo garanayo kuwaasi oo qaarkood ka yimid magaalada Muqdisho sidoo sheegay. waxa sidoo kale uu ka digay in dadkan ku soo qulqulaya magaalada Dhuusamareeb ee lagu tuhmayo inay gacan saar la leeyihiin al-shabaab laga digtoonaado. waxa uu sheegay in dhowrkii jeer uu soo xiray ragga ka tirsan al-shabaab marba marka ka dambeysay awood asiga ka xoogan loo adeegsanaya taasna ay sababtay in uu meesha degdeg uga baxo isla markaana xilka uu saas u casilo. waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu xilka ku wareejiyo si nabadgelyo ah si lamid qaabkii asiga loogu wareejiyay. waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyay in uu rajeynayo in dhawaan magaalada Dhuusamareeb loo soo magacaabo taliye la jaan qaadi kara marxaladda halkaasi ka jirta. hayeeshee isagu uuna aqbali kareynin in magaalada Dhuusamareeb ay kula laafyoodaan rag ka tirsan xarakada al-shabaab oo dagaal baan uu hore u soo dhex maray. sargaalkan ayaa hore waxa uga tirsanaa maamulkii Ahlusunna wal Jamaaca waxaana ka mid ahaa ciidamadii la qalameeyay. warar kale oo madax bannaan oo la helay ayaa sheegay in taliyahan lagu eedeeyay in uu gacan saar dhow la leeyahay ururkii Ahlusunna wal Jamaaca ee magaalada laga saaray taasna ay cadaadis xoogan lagu saaray oo sababtay ugu dambeyn inuu xilka ka digo. sidoo kale warar soo baxaya ayaa sheegayo in la filayo in dhawaan loo soo dhaadhiciyo magaalada Muqdisho halkaas oo lagu maxkamadeyn doono. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu kulamo joogto ah la yeelanayaa guddiga maamulka Hirshabelle uu magacaabay ka hortagga caabuqan dunida saameynta ba'an ku hayo ee coronavirus. madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa kulamo uu xalay kula yeeshay madaxtooyada maamulkaasi guddiga. waxa uu kala hadlay in ay dardar geliyaan ama ay xoojiyaan baaritaanada ay sameynayaan ee la xiriira in ay dadka ay ka shakiyeen ee looga shakiyay in ay qabaan caabuqan coronavirus. madaxweyne Maxamed Cabdi Waare waxa uu sidoo kale ka dalbaday guddigan in ay dadka shacabka ah u sameeyaan wacyigelin la xiriirta cudurkan coronavirus. xubno mas'uuliin oo ka tirsan maamulka Hirshabelle ayuu galaaftay caabuqan dunida ku sii baahay ee coronavirus. maalmo ka hor waxa uu geeriyooday wasiirka hubka dhigista iyo maleeshiyaadka ee maamulka Hirshabelle. hore waxa uu sii goriyay wasiir dawlad ka tirsan maamulka Hirshabelle. dhowr mas'uul oo ka tirsan maamulkaasna waa uu soo ritay. madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa waxa uu guddiga kula dardaarmay in ay xoojiyaan wacyigelinta taasi oo la filayo in wax weyn ay ka bedesho caabuqan sida xoogan ku sii faafayo. magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar ayuu madaxweynuhu dalbay in si degdeg ah looga sameeyo fariimo wacyigelin ah. waxaana uu sidoo kale saraakiisha ammaanka amray inay xoojiyaan waqtiyada bandowga taasi oo xal u noqon karta in dadka shacabka ay sameeyaan isdhexgal. cudurkan ayaa waxa uu ku faafaa isdhexgalka bulshada sida dad badan ay qabaan. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika AMISOM ayaa lagu waramayaa inay dhawaan bilaabi doonaan howlgal ka dhan ah al-shabaab kaasi oo ka bilaaban doono gobolada ay ku xoogan yihiin al-shabaab. howlgalka ayaa waxa uu ka bilaaban doonaa gobolada Galgaduud iyo Mudug oo qayb ka mid ah hadda al-shabaab ay ka arrimiyaan. madaxweynaha maamulka Galmudug qoorqoor ayaa lagu waramayaa in saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika AMISOM uu kala hadlayo sidii howlgalkaasi loo dardar gelin lahaa. howlgallada ayaa waxaa la doonayaa in lagu xoreeyo degmooyin dhowr oo hadda gacanta al-shabaab ku jira. sidoo kale howlgal kale ayaa waxa uu ka bilaaban doonaa gobolka Shabeelle Hoose kaasi oo la doonayo in al-shabaab looga saaro degmooyin dhowr oo hadda ay ka arrimiyaan. ciidamada xoogga dalka kuwa midowga Afrika AMISOM ayaa hadda isku diyaarinaya sidii ay weerar xoogan ugu qaadi lahaayeen fariisimaha al-shabaab ay kaga sugan yihiin labadaasi gobol.
maamulka Soomaaliland waxa uu sheegay inuu diiwaan geliyay kiisaskii ugu badnaa ee dadka uu soo ritay caabuqa coronavirus. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegay in 11 ruux oo la baaray laga helay caabuqan coronavirus. waxa uu sheegay in caabuqu uu ku sii faafayo deegaanada maamulka Soomaaliland isla markaana ay muhiim tahay in si degdeg ah looga hortago oo aan la dhayalsan. warkii khiyaari waa inaga inta haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saaro qaybta hoose aragtida nagu reeb muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada nabadino.